xaybta liido lagu dilay kismaayo lagu dilay garowe lagu dilay xildhibaanada lagu dilo dadka lagu dilay waxba kama dumni aniga walaaladay waaye waa walaalkay iyo walaashay way dadka dhintay dhimanaya diyaar baan u ahay dad idinka inuu idin hogaamiye iska soo saara wax idinka inaan ogeyn calanka intuu kor aad ka aragtaan waxa ka hooseeya inaan ogeyn war walaalayaalow ha raacina war maanta inta naga dhimatay in ka badan baa naga dhimanay sadda idin sheegaya maxaa yeelay shacabkii dowladda baa lagu sii jeedinay koow nimankiina way adeeganayaan way shaqaysanayaan idinka kharashkiinni iyo xooggiinni iyo taageernimada waxaa ku bixinaysaan dadkan ayaga ay soo abaabuleen ay ka dambeeyaan ayaad kharash ku bixinaysaan dadka ayaga maxay suubinayaan shacabkiina way dhammaynayaan carruurtiina way dhammaynayaan afkay soo duubteen dowladdiina way ka soo horjeedsadaan war dowladda lagu sheegaya dowladdeenna annaga haddaan la jirno dowlad qubadle bay noqonaysaa laakiin dowladda annaga haddaan ka soo horjeedsanno ilma adeerayaalow dowladda wax ma qaban karta keligee soomaali waxay tiri gacmo wada jir bay wax ku qabtaan war ma barinta soomaaliye war nima yahow ninkan hadda walaalkay I respect him waa wiil walaalkay qaladyo badan waa jiraan weligay inta meel soo istaag groupka aan la jiray hataa ma sheegin hataa waxaas looga saaray waxaas suubiyana ma sheegin taliyaha nabad sugidda magaciisa aan hadda inta ka sheegaynin oo aniga ila soo xariirayo inuu raad soo galay oo aan ka wada hadalnaan ogahay bas aan ogahay arrintan waxaan dhayaa la ogaanin wiilka Soomaaliya Soomaaliya idinka baarta telefoonkiisa wakaa haddaad wax ku weydaanna waa dhib ma laha haddii aad ku heshaan haddee idinkiiyo asaga weeye laakiin arrintan babliga keeni mayno gruubkanna si oo professional buuqi rabsho jirin ayaan xireennaa kow gruubka maalinka la keenaan ku dhahay maalinku imaaday oo telefoon uu leeyahay soo galayna balaayo kama horreynin hawiye daarood isaaq wax aan loo joogin hebel aniga codkaygu tirtiray codkayga meesha aan soo geliyey because qabiil wax aan loo joogin buu meesha keenay marka ilma adeerayaalow Soomaaliya iyo qabiil isma qaataan waa laba wax oo kala duwan weeye war haddii aad qabiil ramay inaad taageerno libaax iyo qabiil ku qaracdaana oo qabiil hebel caayay libaaxa ku dhufi iyo la soo dhagsado hebel qabiil soo dhagsado libaaxya ku dhuf aad darteena ku dhufataan idinkana waxa ogaataan dad baa naga faa'iideysanaya carruurteena xeebta liido ku qarxinaya kismaayo hoteelada ku qarxinaya garooba sidoo kale meel walbo ma fahamtay qabiil xagga naga dhiga nimankan afka duuban aan u soo jeesanno diyaar ma u tihiin nimankan inaan iska celinno war dowladda keligeed wax ma qaban karto farmaajo oo madaxweyne kelig oo wax walbuu suubiyey waad ogeedeen xasan sheekh sidoo kaleeto waad ogeedeen sheekh shariif war waxaan nima yahow dowladda walba waxay la socon la adahay war waa annaga weeye shacabka weeye annaga dowladdeenna ma garab taagnin dowladdeenna aan garab istaagno walaalayaalow kharashkeena dowladda aan ku taageerno hebel baa waa qabiilisto madaxweynaha kan koos waaye war qof stress hayo sararta jiifo hadal uu soo qoray iyo wixiisi iyo oo mikrofon uu qaatay annaga qofka stress iskaga baabiinayo wax kala toobi kala tulaya aan qabiil lahayn walaalayaalow dowladdeena aan taageerno dalka Afrika ugu qurux badan buu Ilaahayna siiyey waa khayraadka dalkeenu ku jira dad aragtaan wallahi oo billaah oo tal hadda waxaan daawanayay YouTube-ka maalin loobeete oo Soomaaliya laga hadlayo war shidaalka iyo wax iyo macdantii war annaga dadka ugu taajisan baan nahay laakiin aqli ma jiro aqlina hadduu jirana qabiilkiiba aqligii wax baabi'iyey wax walbo ninka Soomaali waxa lagu leeyahay hebel uu gaaloobay meesha laga saaro kana la yeelo war adoo qabiil taageersan baa hebel hala dila leedahay be qofkan adeeda hala dilo qof wax uma dhiman diintiisu ka baxay kaase ee adiga inta lacagtaada waxa ku bixisaa qabiil in la baabi'iyo lacagtaada waxa ku baabi'isaa walaalka in adeerka oo laga yaabo hata adoo dhibaataysan inuu lacag ku siimayso guriga kirka dhiibo ku caawiyay familkiisa aleeda hala baabi'iyo hala dhameeyo reer hebel hala dhameeyo maxay ta diinta haysato aqliga xaguu aaday qabiilkiiba wax walba saan noo galay qabiil ba halkaana geeyey walaalayaalow war ma tashanaa ma israacnaa dhalinyaro annaga ah oo wadani ah oo caano la yaqaano oo lagu kalsoon yahay intaan madaxweyne u soo bisaan gudoomiye u soo bisaan madaxweyne ku xigeen dawlad dhalinyarada Soomaaliya sida SYL ma soo binaa
cadowgeenna kow indhaha duuban kuwa indhaha duuban ma ka bilawnaa Ethiopia baddeena u socota ma ku xijinaa Ethiopia mar borta cadowgeenna weeye laakiin Ethiopia annaga aan ku duulna ma lihin baddeena aan difaacano Ethiopia naguma soo xadgudbi karto ma fahamtay nagama lacag badno nagama quwad badno laakiin ayaga qabiil iskuma raadsadaan annaga maxaa aniga qofka ii hiilin lahaa wuxuu leeyahay qabiil hebel waa maxay ka gaay ayaga waxaas ma laha laakiin annagoo isku duuban nimayow cadowgeena ma ka soo horjeesanaa wiilka muxuu weydiiyey khadar miyaa wiilka waxaan rabaa kacdoonkii 2015 bilowday oo ka baaqay maanta haddaad dib u firto oo dib u bilowna ka waran oo aan nidaam kale iyo system kale aan marno oo si saxda ah shalay ku bilowdo kala raac inaad weli khadar waa su'aal fiican aan kaaga jawaabo marka kacdoonka dhalinta Soomaali aniga iyo wiilal kaliya gabdha kala bilawnay hadaawna waan sheegay waan furnay kharash baan gelinay maalkeenaan gelinay xoogeenaan gelinay ina adeero ma bilaabi karno dadkii ayaa u xirnay group soo gashay dawladdan u tagay khaladkan baa dhacay baan dhahay aniga busy baan safarkayga badan dadkana u dhiibay meeshan waa la soo galay wax khaladkana dhacay groupkan waa la xiray hadii dib loo furo haddana waxaan ku sheegayaa in la isdaba galo oo maanta toban wax dawladda inta u tagto waxaan ma dhihi kartid because groupkan group la soo galay waa khaladkana dadka iska lahaa waa dadka dhaqayn la rabo inay soo celiyaan arrinta ma soconayso group kale hadda idinka khadarow dhalinyarada hadda meesha ugu caansanaa qaar baa joogo karbaash xalaal iyo kulli aan u jeegaa axmed baan u jeedaa simba king qali baan u jeedaa yaa kan kale yaa king muha baan u jeedaa arkan u jeedaa warnimay Soomaali dadka kuwa kalena maqana walaaladeen ana la tashta war group suubista lacagta anaga diibeyno lacagta ugu horeysa aniga ugu soo qora Idris Bebe ku soo qora waan diibeynaa war ciidan suubista ciidan dawladda taageerto oo dawladda garab u noqoto suubista laakiin mid baan idin sheegayaa ciidan oo waxa suubisataan dawladda ee sharciyeysay ifaan waxaan dhahay lacagta anaga diibeyno intaas oo milyan baan aruurnaynaa waxaan ka dhigi karnaa ciidankeena dhalinyaro Soomaaliyeed oo noqdo Afrika iyo Amerika dadka bil walba lacagta ugu badan la siiyo waan ka dhigi karnaa annaga ka dhigi karno war qabiil hebel ba qabiil dhagsanay libaaxya ku qaraacdaan inaad calaashan inaan faano oo dhulkan ku jiinay ma war heede inta taas ku jirno horumarna ma gaarayno dal shisheeyana saan u kududeena annagoo fara badan ma faanteen nimayahow aan annaga intayna walaalaha aan isku tagno aan tashanno Soomaalinimada ayaana deeqo waxaan dadkan iska ordaayo war adiga qof hadda already been buu sheegay kow wuxuu ku leeyahay anaa aasay midda qabanay kow madaxweyne Deni oo dhahay war shacabka Soomaaliyeed la hadlay oo dhahay war dadka meesha jooga masaakiinta dibno ma geysanine faraha ka qaada jaam mayga loo qaatay war dadka idin qofkaas hogaanna ma galo al-shabaabna inuu ka hadlo uu ka baqaa oo waan ognahay anaga inuu raad asaga uu leeyahay al-shabaab isdhaxmar mareen waan ognahay dadka asaga man hogaamin karaan magacan horta kacdoonka dhalinta Soomaalina ha noo dhigo magacan asaga ceebeeyay tuka cambaar loo ka dhigay magacan horta xagga ha dhigo Soomaaliyay intiina meesha ku jira 3k baa sii maraysaa war iska soo saara madaxda kalena way joogaan Soomaaliya ugu caansanaaye idinka iska soo saara dad dhalinyaro wadaniyo hogaamiyaale oo aad ku kalsoontiin ciidan annaga aan leenahay oo Afrika noqdo ciidanka ugu miishaar badan baan ka dhigi karnaa war qof walbaan ku dhahay fiiri maqaamli Idris Soomaali maqaam qof qurbaha ku nool bay kula tahay qiyaas estimate Yurub mise qurbaha oo dhan maxaa Yurub qurbaha oo dhan wallahi 2 milyan 2 milyan اوكي شعبكنا soo qoradhay qiyaastada soo qoraan estimate 3 milyan qof soo qoray oo jeeda hurday wuxuu soo qoray 5 milyan 4 milyan 3 milyan